wacan wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtiin si walba muuqaalka idiin soo gaarayo maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti waliba ay ku tahay oo wanaagsan soo dhawaada waa muuqaalkeeni ku saabsanaa suuqa kaliibsiga ciyaartoyda waliba qaasatan kooxaha Premier League iskuma sii jiraane waa kooxaha loo yaqaano Big Six-ka barnaamijkeeni ayaa noo socdo waa maalintiisii labaad waxaan bilaabnay maalintii shalay haddii aad nagu cusub tahay ay tahay markaad kuugu horeysay aad soo booqatay page-ka fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad page-ka follow dhahdid muuqaalkana laagsi soo u gaaro saaxiibo badan sida adigoo kale ii share garay oo saaxiibada la wadaag soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan gudaha u geli doonaa warar xasaasi ah ayaa soo dhacay 24 saac ee u dambeysay waliba saacadihii u dambeeyay wax badan ayaa iska soo daba dhacayo maadaama horyaalka Premier League kaliya ka harsan tahay hal bil wax ka yar wararkeena maanta waxa ugu waaweyn kooxda Liverpool ahead oo bangiga u jubi doonto ciyaaryahanka kooxda Newcastle oo number 9 ugu ciyaaro Alessandro Isak ayaa la leeyahay kooxda Liverpool waxay ku qarash gareyn doonaan 120 milyan Liverpool saad la socotaan labadii xilli ciyaareed la soo dhaafay suuqa wax qarash maysan gelin oo saas u buuran balse maadaama ay ku guuleystaan horyaalka Premier League saad la socotaan hore waxay u keeneen Florian Wirtz ayay ka soo bixiyaan 160 milyan kooxda Liverpool waxay taagan yihiin bangiga ayaa jibinaynaa maadaama u baahannahay striker balse kooxda Newcastle ayaa soo diiday dalabkii kooxda Liverpool Newcastle ayaa la fahansan yahay inay dalabka gudbiyeen waryahanka kooxda u ciyaaro Frankfurt ee lagu magacaabo Ekitike haddii ay helaan Ekitike kooxda Newcastle ma beel daray doonaan lacagtaas dhinaca kale Saakay kooxda Chelsea ahead ayaa waxaa la soo xiriirtay kooxda Man United oo raadinayso number 9 inay qaataan kooxda Chelsea ayay xaaladiisa ka wareysteen ninka lagu magacaabo Nicholas Jackson Man United san ognahay xilli ciyaareedkan waxay iska fasaxeen dhowr ciyaartoy balse ilaa hadda waa ciyaaryahan oo laga iibsaday malahan sidaas tahay Man United waxay raadinayaan ciyaartoy ka ciyaarto dhinaca weerarka shalayna waxaa idin soo gudbiyay Man United kaliya inay la wareegeen Matanya Cunha saakay wararka ugu weyn kooxda Man United waxa weeyaan Nicholas Jackson ayay rabaan inay ka qaataan kooxda Chelsea Nicholas Jackson xilli ciyaareedkii hore ee hadda dhamaaday wuxuu ku lug yeeshay 15 gool asigoo saxiixay qandaraas cusub oo gaarayo 2033 waa ciyaaryahanka labaad ee qaaradda Afrika ka socda ee kaliya waxa ka sareeyo Mohamed Salah Nicholas Jackson ayaa ku xigay ciyaartoyda qaaradda Afrika ka imaatay ee Premier League uu goolasho badan Nicholas Jackson kaalaya taageerayaasha Arsenal nala riix fursadan oo waxaan u baahannahay inaan ku wareejino kooxda Man United saakay maraan la xiriiray macalinka kooxda Chelsea Enzo Maresca waxa liigu dhahay caagani waxa ma taqaanid oo ilmaha ayaa ka biisha fursadan iga riix oo Man United ayaa rabaa inaan ku wareejiyo Nicholas Jackson taageerayaasha Arsenal maadaama kooxdii Man United iyo taageerayaashooda ay fursadii aan riixayna ee Madueke ee nala riixeen adikana maantay waxaan ka codsanayaa inaan nala riixdaan Nicholas Jackson san ugu wareejino kooxda Man United ugu dambeyn kooxdii Arsenal ahead ilaa iyo hadda waxa la leeyahay saacadaha soo socda ayaa lagu dhawaaqi doonaa ninkii ahaa Madueke iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Victor Gyökeres asagana waxa la soo bandhigi doonaa maalinimada Jimcaha sida u raaco tripka ay aadi doonaan wadankaas iyo Singapore Arsenal ayaa dhameystiri doonto saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda Madueke iyo ninka lagu magacaabo Victor Gyökeres sida u raacaan kooxda ku wajahan wadanka Singapore waxayna la ciyaari doonaan kulamo adag oo shub ah ay ciyaari doonaan kooxda Arsenal inta aan muuqaalka duubayay waxa soo dhacay warar aad iyo aad u xasaasi ah balse aan macquul ahayn inay dhacaan kooxda Man United ciyaaryahanka u ciyaaray ee lagu magacaabo Marcus Rashford ayaa la xiriirinaa kooxda Liverpool balse macquul maahan Liverpool iyo Man United inuu dhaxmaro wax ganacsi ah ayaa la leeyahay warbixinta balse suurtagal ma noqon kartaa inuu Rashford uu ku biiro Liverpool adiga ayaa ku weydiiyay qaybta hoose la wadaag Liverpool iyo Man United ganacsi miyaa dhaxmari karo intaas ugu waaweyneed warbixinteedii maantay ee suuqa kala iibsiga
muuqaalka sii share garay saaxiibada la wadaag haddii aad ugu cusub tahayna page ka follow dheh inta kulmi doono muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo